bismillaahir rahmaanir rahiim mar labaad ku soo dhawaada shirka jaraa'idkan ku wargelin jirnay shacabka Soomaaliyeed howlgallada ciidamada amniga ka wadaan gobolka Banaadir gaar ahaan caasimadda qaranka. ciidamada amniga kaashanaya shacabka Soomaaliyeed waxay wadaan howlgallo lagu sugayo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka waxaana ka soo hooyay horumar la taaban karo. sidoo kale howlgallada ciidamada waxa uu suura gashay inay soo qabtaan 20 meeyo eedeysane oo lagu tuhmaayo inay ka mid yihiin argixisada haddana waxaa lagu wadaa nidaamka baarista. maanta taariikhda ahayd 16 bisha shanaad 2019 waxaa ciidamada amniga toogteen xubin ka tirsan al-shabaab kadib markuu dhaawacay suuqa Bakaara ku dhaawacay askari ka tirsan dawladda. sidoo kale ciidamada amniga waxay gacanta ku soo dhigeen dhagar qabo ka tirsan argixisada al-shabaab kaasoo walxaya qarxa ku xiri gaari uu lahaa qof shacab kaasoo ku qarxay wadada Maka al-Mukarrama. waxaa rabnaa in mar labaad digniin u dirnaa shacabka gobolka Banaadir dhanka kireynta guryaha milkiilihii guri lagu soo qabto dad ama agab lid ku ah amniga waxaa la tiigsan doonaa sharciga. fadlan guri marka ka kireynaysiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ka diiwaan geliya degmada ka tirsantihiin. sidoo kale waxaa shacabka ugu digeynaa banaanbaxyada sharci darada ah muwaadinka Soomaaliyeed inuu cabashadiisa muujiyo waa xaq dastuuri ah balse waxaa loo baahan yahay inuu soo maro nidaamka dawliga ah. howlgallada ciidamada si xawli ay u socdaan iyadoo xaafado badan ka tirsan gobolka Banaadir lagu wada baaritaan guryo iyo howlgallo bartilmaameedsan ama target operation sida loo yaqaanaba. waxaa mahad balaaran u soo jeedinaynaa bulshada Soomaaliyeed oo si taxana ah nala soo wadaaga wixii amni dara ah oo la kulmo iyo xogog badan taasoo sahashay inaan ka gaarno howlgallo oo hadda ka socdo caasimadda.